asagoo sakhraansan ayuu masaajidka soo galay si uu u tukado. Kadibna waxaa dhacday arrin mucjiso ah. Dhacdada qisadan ayaa ku saabsan nin dhalinyaro ah oo da'da sodomeeyada ku jira. Ninkan ayaa ahaa mid Ilaahay caasiyay subxaanahu wa tacaala, wuxuuna ahaa mid naftiisa kula xadgudbay dunuubta iyo macaasida kala duwan. Macaasidiisa faraha badan ayaana gaarsiiday inuusan ka istaagin samaynta shay kastoo xaaraam ah. wuxuuna cabi jiray khamriga, asagoo isticmaali jiray mukhadaraadka noocyadiisa. Faaxisho kastana wuu samayn jiray, Ilaahay aan ka magan galnaye. Arrintiisana waxay gaartay inuu hooyadiis iyo aabihiis garaaco. Markay suuragal noqon weyday asaga iyo ehelkiisu inay wada noolaadaan, ayay u sameeyeen qol uu kaligiis ku noolaado oo aad uga fog. Muddo ayuuna xaaladaas ku sugnaa. Maalin maalmaha ka mid a ayuu ninkan dhalinyarada ah u aaday mid ka mid a guriga saaxiibadiisa si uu ula soo cabo khamriga, uuna ula isticmaalo balwadaha kale xuxun. Saaxiibkiis ayuuna ka dalbaday inuu u soo iibiyo khamri badan. Nala dhamayso qisadan. Muuqaalkan adigoon faafin ha dhaafin. Haddii aad muslim channelkana subscribe saara oo gambalelka u furta, adigoo muuqaalka like saara. Khamri badan ayuuna cabay ninkan dhalinyarada ilaa uu daal ka dareemay qalbigiisa iyo laabtiisa. Ilaahay ayuuna magan galay, wuxuuna yidhi, Rabbiyow i caafi, Rabbiyow i astur. Ninkan dhalinyarada ayaana qalbigiisa qabtay. Waxayna ahayd markii ugu horreeyay oo uu Ilaahay magan galo noloshiisa oo uu baryo duco ula jihaysto. Ninkan dhalinyarada ayaa saaxiibkiis ku yidhi, nagu mashquuli telefishinka oo noo shid si aan u daawanno. Markii uu saaxiibkiis shiday telefishinka ayuu maqlay sheekh akhrinaya quraanka kariimka, gaar ahaan suuratul Xaaq. wuxuuna maqlay qowlka Ilaahay oo ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. ninkan dhalinyarada oo sakhraanka ayaa bilaabay inuu ku baraarugo kalaamka Ilaahay, wuxuuna naftiisa xasuusiyay kalaamka Alle. ninkan ayaa ka baxay guriga saaxiibkiisa asagoo caqligiisa iyo maskaxdiisaba ku celcelinaya kalaamka Alle oo ku fikiraya. wadadii gurigiisa asagoo ku sii socda ayuu helay mid ka mid ah masaajidda, wuxuuna damcay inuu galo masaajidka asagoo uu khamrigu ka soo karaya ayna ka muuqato inuu sakhraansan yahay. dadkii ayaana afkiisa ka uriyeen khamriga karkiisa, waxayna damceen inay u diidaan masaajidka galidiisa. wuxuuna ku yidhi, iga leexda aan tukadee, iga leexda aan masaajidka galo aan tukadee, aniga waxaan u baahanahay inaan tukadee. kulligoodna way garaaceen, mid gacantiisa ku dhufta, mid ushiisa ku dhufta, iyo mid kabtiisa ku dhuftaba, iyo mid gacanta ku haysta wax uu ku dhibaateeyo ninkan maskiinka ah oo sakhraansan. wuxuuna wax badan ku celcelinayay, iga taga aan tukadee, iga taga aan tukadee. sheekh ayaana ku yidhi, haddii aad rabto inaad tukato waxaa lagaa rabaa inaad mayrato oo weysaysato, markaas kadibna aad tukato. ninkii dhalinyaradaha ayaa yidhi, hadda ayaan samaynayaa taas. sheekhi ayaana yidhi, ka leexda, waxaa laga yaabaa inuu Ilaahay idinkaga dhow yahay. masaajidka ayuuna soo galay asagoo qubaystay oo weysaystay una tukaday Ilaahay subxaanahu wa tacaala. laakiin markuu salaada galay wuu sujuuday, mana uusan istaagin. dadkii masaajidka joogay ayaana arkeen ninkan dhalinyarada ah tukanaya, wuxuuna sujuuday sujuud dheer oo uusan ka soo istaagayn. dadka ayaana moodeen inuu sakhraansan yahay oo og yahay waxa uu samaynayo. laakiin amar Ilaahay ayaa u yimid, naftiina way faaruqday oo wuu dhintay. mid ka mid a dadka ayaana yidhi, laa ilaaha ila allah. masaajidka ayaad ku tukataan faradyaasha oo dhan, ma u malaynaysiin adinkoo sujuudsan inaad dhiman kartiin oo Ilaahay hortaagan subxaanahu wa tacaala? xaalad kastoo aad ku sugan tihiin waad dhiman kartiine. ninkan aad garaacayseen oo aad rabteen inaad ka cayrisiin naxariista Ilaahay iyo beydka Ilaahay, Ilaahay ayaa u doortay xusnal khaatima. nafti ayuuna ka qaaday asagoo sujuudsan Ilaahay hortiisa. allaahumma innaa nas'aluka alxusna alkhaatima. اللهم إنا نسألك التوبة قبل الموت.